markana Israa'iil ayaa ku hanjabtay in ay Soomaaliya ay weerari doonto sidoo kalena basaasiinteeda ay ka howlgali doonaan gudaha ee dalka ee Soomaaliya. Israa'iil ayaa uga digtay Soomaaliya kadib markii ay sheegtay in Soomaaliya ay noqotay goob uu Turkigu saameyn ballaaran oo ku yeeshay. sheegal oo ah la taliye sare oo ka tirsan dowladda Israa'iil ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay noqotay goob lagu tijaabinayo gantaalka ee Typhoon oo uu sheegay in loogu hanjabay Greega iyo Israa'iil. sheegal oo hore u ahaa ku-xigeenka ee xiriirka ee dibadda Israa'iil ayaa furiin u diray Turkiga isagoo oo yiri fogaanta Soomaaliya ma aha mid ka badan Iran. sheegal ayaa sheegay in maamulka Israa'iil uu si dhow ula socdo xaaladda isagoo oo ku daray in Turkiga uu ka dambeeyo saldhig ku yaala gudaha Soomaaliya oo lagu tababaro tiro badan oo askar ah. sheegal oo anadesh sidoo kale sheegal waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid ay si dhab ah ula socdaan isla markaana Greega iyo Israa'iil ay kordhiyeen kormeerka xog ururinta ku saabsan tijaabo kasta oo Turkiga uu ka fulinayo gudaha ee Soomaaliya iyaga oo Israa'iil ay doonayso in basaasiinteeda ay ka howlgaliyaan gudaha Soomaaliya si loola socdo dhaqdhaqaaqyada Turkiga uu ka sameynayo gudaha ee dalka ee Soomaaliya. sidoo kale sheegal waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid si dhab ah ay ula socoto isla markaana Greega iyo Israa'iil ay kordhiyeen kormeerka iyo xog ururinta ku saabsan tijaabo kasta oo Turkiga uu ka fuliyo gudaha ee Soomaaliya.